إذا هو بلا مشاهر بو أنا مشاهر كسينة بو هذا نك سيدا وهذا عيدا كسحوي بو دولة بودلين با مشاهر كسيسة حتى قاتل عشانكي ما تكون سيسان أذكر عيدا كي جدود سيني وليه شنبل مشاهر معرك وبيرك يعلوش سوكي دقي ودوي كحرنا أيو ونكمل ملف كشقينا يا برا يديش ونكمل بالي هذا ما يسا شاكر محمد حاج قولت بالي هذا ورر بريستول وي UK وكتي تكسيلو كاها ونكمل ملف كالودي دني تشكل وشقيه حلوي واسماء محمود بعد لا بالي وابتيالوه ودadka dani suuliga waxa weeye hadii la kula biyaha u dhiga weeyay si qaato arrintaasi waa ka feejigan yihiin deegaan si qaatomana wax fikir horgal ama garow ka yimaado Puntland ka yimaado ama asana ka yimaadana dhagaha umadu way taagantahay isqaatiga ma jirto qof madax kor u qaadi kara ma jiro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مeel ka soo dhageysanaysan halkani waa Cabaas Madani muuqaalkan isgaarsiiya si shar gareeyo ugu horeen waxaan ka hadli doonaa arinta koowaad afar habeen ka hor baan barnaamijkan baahay wax ku jiray nin horgalo nasteex tuur la yiraahdo ay qoliyihii Puntland ay wadaan heshiisyadii ay galeen ciro iyo dani bay qayb ka noqotaba in buu hoodle horjooge ama horgal loo magacaabo Puntland iyo jabhada argagixisada sanad baan arintaas ka shaqeynaya dadka deegaanku sida ugu baraarugeen iyo qorshahaasi cidda dabinkaasi ka dambeysay ama abaabushay baan rabaa inay ka dabageeyo qodobka labaad ninka raacsada waxa lagu dilay meel soo dhow ciidamadii Puntland oo gododsan kana cabanay mushahar la'aan halka qoladii kale ee waxa weey Puntland Ferris ay dhahaan mushahar baanu bixinaayo ciidanka SSC baanu 3,000 iyo 4,000 baan mushahar siinaa qodob kana caawdo istaagi doona ninka la dilay ee marxuumka iyo qaabka lagu dilay marka koowaad ciid wanaagsan kullu caam wa antum bil khayr ومالنتي لبادي إيدا ويه أي عيدان بش iyo barwaaqo haynu u gaarsiyo dhamaanteen maalin dhaweed afar habeen ka hor halkan aan ka hadlay arintii aan ka dhawaajiyay ee aan soo gaarsiiyay anigu waxaan xogteeda hayn ma gudbiyo ay wararkan meel badan ma ka helaa waan idin sheegay markan horgal nasteex tuur in la rabo in la magacaabo khalkhal lagu galiyo waxa way gobolka Cayn arintii sidii aan idin sheegay ayay noqotay waxaa soo kordhay oo aan xogta ku helay heshiiskii ay ciro iyo ay gaareen ee malafka ay si qaatomo ciro iyo ninka la yiraahdo dani ay qayb ka ahayd meesha ugu horeysa ay istuseen markii ay isu tageen afka isu dhoweeyeen inay tahay in khalkhal galin laga abuuro gobolka SSC qaatomo ee halganka ugu sultan gobolka Cayn buu hooda caasimada waxay dhaheen marka hore ku heshiiyeen inay qolo walba barasabadeeda horgaleeda magacaabato kadib leeyahay Puntland SNM oo leeyahay hadana ku qaatomo gobolkii in khalkhal laga abuuro waxa la sheegay markii dambe waxay soo afgarteen marka ay sameeyeen wada hadal badan inaanay hadda xagga SNM suurtagal ka ahayn mangal aan ahayn nin ka socda jabada SNM buu hada tago moogtay taasina soo dhamaatay way ogaadeen shacabka Puntland iyo SSC qaatomo waliba is ogolyiin labada nidaam ee SSC qaatomo iyo Puntland ba xoogaa khilaaf ku dhex jira marka si taas aad ugu hoos dhuumataan xoogaaga ayere waxa weey dadka wali u nool ee qabiilka idinka fursadaas maanta idin banaanta wayna idinku magacaabaan waxa la rogrogay la isla afkartay wiil yar oo nijisa oo waslad xaaraan oo dadka reer SSC qaatomo ku jirtay la yiraahdo nasteex tuur buu hoodlaanka la yaqaan diin daawiyadu buu hoodla ka sameeyay u shaqeyn jiray jabhada argagixisada sanam dhibaato weyn gobolka aan ka geystay qabaylka isku diray maamulada heeraha naga xiga ee kan SNM argagixisada kan kale Puntland ba wax kala ma urursan inta dadka ugu xun ee dadka dhibaatada ku haysa inta soo xushaan si dadkaasi iyaga waxa uu hoomog loogu diro isku mashquulaan islaayaan kala fogaadaan waxa qayb xukun waayo fursad kale oo ay dadka deegaanka dhulkooda ku joogi karaan ma jirto xoolahoodana fiiri ama nidaamka argagixisada SNM waxa iyagana dhulkan xukunaabay lahaayeen noqta kuwana hay'adaha iyo dhaqaalaha iyo masabka marka la yiraahdo xildhibaanadii dhul bahante garawa noqta markaas ay dhil yeeshaan noqta ila wala boobayay hay'adahana difaac bay tuu inoo qayb weey
waliba inta ugu weyn SNF qaadan jirtay xitaa waa garan waayeen war tirada dhifay bay tuuga xitaa isleekaysi waa kuwa Puntland ma ka hadlaya warka dhowr jeer afkay ka maqasheen dhulkan waxaa loogu talagalay warsingeli dhulbahan degan yahay dhulkana inay sheegato jabhada argagixisada salaam masabka iyo hay'adaha iyo dhaqaalaha iyo waxaana in xabar kursiga lagu aado Puntland ay sheegato organiste turba si hoos loo magacaabay دكتور بالي المقعاو وراغلا official lagama dhigin waa laga baqay shacabka laga baqay laakiin nasiib wanaag dadka reer buuhoodla ama reer caymeed ama reer insiqaatmo xogta way la socdaan wayna ka howlgalayaan si dhiifoon bay uga socdaan uqaasha cid waliba jamaahiirta by telephone ma kula wada kurigood arinta waa loo togayaa diyaar baa loo yahay wiilka yarna soona insiqaatmo ku soo galo in jamaahiirtu ay ka xaaja qaato xabsiga loo taxaabo sharciga la horgeeyo xilligii deegaankan bilaa dawladda ahaa waa soo dhaafay ama buuhood la haato ama macro kale oo insiqaatmo haato food haduu soo galiyo nasteec tuur xabsiga lagu tuuraya jamaahiirtuna waa baadi goobaysaa sidii horgaladii SNM looga adkaaday baana kuwa Puntland insha Allah taala looga adkaanaya nasteec tuur lama ilaawin baatadu gobolka aan ka geystay waa taariikhda waa horgalkii ugu horeeyay in adeerkii dhulbahantaa oo buuhooda jooga in $50 u siisto isagana uu gacanta u galiyo waa taariikh weey wali nawarada lama ilaawin hada fiiri maantana waa moogta dila ka indhadag baa maqal jiray tala SNM ku soo tuuray maantana wuxuu rabaa inuu ka tuuro hadaa la kuuray Puntland hada fiiri laakiinse waxaan idinku bushaareynaya jamaahiirtu waa diyaar dadkeenu maanta waa mid waa midaysan yihiin wallahi meel walba wala hadlay telefoon ma u diray aad baa loogu diyaarsan rag baa jira la tuhumay ragga la tuhumay ee lagu tuhunsanay inay kala shaqeynayaan hawshaasna badankood baa telefoon baan kula hadlay arinta way iska bariyeeleen ragga waliisa la tuhunsan yahay igana waa ku maqanahay ninkii lagu ogaado hawsha inuu kala shaqeynayo arinta dabadaaliyada ah lama hamaankan oo gudbeyna jamaahiirtuna way sarkayaan taas waa taaway midna way idin sheegayaan horgaladii SNM iyo isaga u shaqeyn jiray wanu ka adkaana ma arta horgal dabo dhulbahantaayo hargeysa ka hadlay ma aragtay waa may Soomaa sababta maxaa aamusisay ma dadka deegaanka inay u naxayaan midooda cunaan aamusaanba maya awood baan jirin xagayga heesa Soomaa afkiiba juqda gabay waayo awoodoodii waa la weeqay waa laga adkaaday kuwa Puntland ba maanta iyaga u baahan laga adkaado laga toor iyo ina caydiidi iyo ina bisilay iyo hadii ala kuure mid baa soo kordhay adika ilaaw nin la yiraahdo ninka malafkan ka shaqeynaya baranaay idin waa ninkan baa la yiraahdaa magaciisa Shaakir Maxamed Xaaji Guuleed baa la yiraahdaa wareer Bristol way UK ka tagay taksiilo ka ahaa waa ninka malafka loo dhigay waxa weey hadii la kuurayahay dani jikada uga shaqeeya waxa lagu yiraahdaa Ismaan Maxamuud baa dhalay baa leeyahay oo abtiyaalo waa dadka dani suuliga waxa weey hadii la kuurayo biyaha u dhiga weey isagu shaqada balfiiri adduunka fiiri nin qurbo jooga waddanka galbeedka ka tagay oo shaqeysta oo la fiican soo galo hada $300 ama $200 ka qaataa waliba gudnimada horgala oo cad quursiya taxiga xumaayo Bristol ku waday ka badan u keenay waliba isagoo aan godobna ayda ka galeyn dani baan suuliga biyo u dhigayaa iyo horgal caada qaata iyo abtiba yihiin budeegaankiisii dhulkiisii rabaan ku dindaabiyo ninka waxa ka shaqeynaya waa ninka weeyay Shaakir dekadahan u magacaabanaya dekadu waxa garanaya dani budkada uga shaqeeya waa ninka hawsha ka shaqeeyay waa ninkaas weeyay waxa la rabaa in lagu dagaalamo dadka reer Insiqaatmo waxa la rabaa in dadka reer Insiqaatmo la kala qaybiyo laakiin xilligii dadka la kala qaybin jiray ama waxa weey la ka irin jiray maanta bay joogan waa mayo dadku waa mid weey Shaakirna waxaan leeyahay waroodan waa ku garanaya waa ku aqaanaa Bristol waa ku garanaya hada fiiri hadaad ka joog weydo oo waxaad ku hawlan tahay faralka guracay argagaxisay ay ku hawlan tahay ogo waxa xogtaada dhawahaynaa isagana intaas aan leeyahay ugu dambeyn reer Insiqaatmo arrintaasi waa ka feejigan yihiin deegaan Insiqaatmona wax fikir horgal ama garow ka yimaado Puntland ka yimaado ama SNM ka yimaadana dhagaha umadu way taagan tahay isdaqatiga ma jirto qof madax kor u qaadi kara ma jiro deegaankeenu way Insiqaatmo dawladeenu way Insiqaatmo wixii inta ka soo hara waa cad buursi horgal
iyo waxa weeye hadii la ku wadada ay mari jireen waa garanaa halkan ku SNM isaan u shaqeyn jiray marinay baan kuwa halqal taagaya aan marayna taasna waa intaas weey qodobkayga labaad tuulada loo yaqaano Fallujah oo dhaxaysa Carmo iyo Boosaaso Allah u naxariistay maanta waxa lagu dilay ganacsade Maxamed Ismaaciil Doolayare ninkaasi jidka ayuu marayay waxa dilay askarta ciidanka Puntland ayaa dilay waan reeraysa si qaatuma ganacsada reeraysa si qaatuma weey toddobaadkii la soo dhaafay wadooyinka Boosaaso iyo Garow dhaxay waa xirnaayeen waxaana u xirnaayeen ciidamadan oo ah ciidamo Puntland oo sheegay 5 bilood ugu dambeeyay inaanay helin wax mushaharada ciidamada xuquuqdii ay ku lahaayeen Puntland sida daraadeed dadka ay rabaan inay baadaan ama ay dhaqaale weydiistaan waayo dhaqaalihii hantidii mushaaraadkii xuquuqda ciidanka ay xaq u lahaayeen waa kan bani hoteelada imaaraadka ku seexanaya hadii la kuleeyahay iyo Nairobi ee waxa weeye meelahan waxa weeye gabdhaha yar kula tumanayo hadda fiiri siyaasiyiinta Soomaaliyeed waliba special kuwa Puntland wax noqotay ma qorafad bay noqotay lagu tuugsi tago oo mar Carabaha lagu tuusto mar East Africa dhulka waxa weeye gabdhaha yar lagu tunto anyway ninka horta marka hore eheladiisa qaraabadii waa ugu tacsiinayaan ninka ganacsadaan Maxamed Ismaaciil Doolayare ilaahay ha u naxariistaan leh geerida ninkan ka imaado waxa jirta narrative ay abuuri jireen kooxo Puntland Fairs la yiraahdo oo hadda sheeqay qaar badan waxa leeyahay narrative ay abuuri jireen waxa kamid ah si qaataba gaaja ka tilacday ciidanku bilaa mushahar bow ana mushaharka siina ay fiir way swacayaan moqta kii xumaanay Abbas Madin Markis hadda ina caayay Markis ay hadda waxa weeye dawladda Puntland wax ka sheegay bow Markis hadda ninka sida uu hadlay ciidankiisa waxa weeye bow dawladda Puntland ba mushaharka siisa 3500 mushaharka siina hadda qaatay raashinkii narrative-ka geli jiray waxa weeye ciidanka SC Khaatumo ayaa mushahar siinaa 3000 baan mushahar siinaa 2000 ba hadda dhaqaalihii qaat waraadeerow ما تكون سيسان كوا لا مشهر بان سينا waxa weeye hadii la kuurayo anaga biilla in la cunto bad ka hadashaan ilaa ay silsiladii halaadheer wan ogaayay cuntad ka hadlaysiineen hadii wa jiri leedo kimida waxba ka jirin su'aama adigoo ciidanka ay gudubsan yahay oo leeyahay 5 bilood mushahar ma arag oo beerka iyo caloosha suukay dhigay oo wadooyinka xoranayo oo waxa Puntland ka dhax jiray loo bal fiiriyo ilaahay ku dhashay kooxdii Puntland Fairs waxay reer Khaatumo ku sheegi jireen ay ku caayay jireen ilaahay baa ku dhaarmay gurigooda ka dhax jiraan qoliyina caayay jiray ee dani futay ruuxay ninki markii la arkay kuwa meega TikTok haysta oo dadka reer Khaatumo caayaya ba waxa la soo dursaaray codkoodii gurigoodii dhooqo iyo waxa way xaar iyo kaadi gurigooda waxa way hadii la kuurayay dhax fadhiya dadku dhax fadhiya bal soo bandhigay markaas waa ku bari وكو هذا هذا لا كولا له حوي اصلح حسابته وكو هذا له هذا فيري ما يكون Puntland با مشاركه سعيده كاي Khaatumo Puntland انت مشاركه ciida ka Khaatumo 3 kun aad sheeysan si maxay ku u sii weeyday kuwa beerku isku dhigay baahidu hayso ee shacabka wadooyinka u galaya ee shacabka waxa weeye wadooyinka maraya leeynaya ee mushaar laanta ka cabad maxaa kuwa loo sii waayay hadda waxay oranayaan ha ma kuwaasaan waqti hormarinayo anyway waa ka xumaay waxa ka soo reer Khaatumo lagu sheegi jiray oo kooxda ma reer Puntland oo dhan ma aha reer Puntland la sharaf la weeye shacbiyan waxaan ka hadlaynaa kooxda haaraanta ee Puntland Fairs la baxday oo iyadu wixii baraha bulshada ku taageerisay in ka soo ay hadda gabaabsi yihiinba nin walba waa ku bareeyay waxay ka sheekin jireen iyo waxay la Khaatumo la jeclaayeen maanta gudahooda iyo bacweed la kula taala waliga walaalka xumaan la jeclaan wanaag mooyaane xumaan la jeclaan waxa rajeynaa reer Puntland inay waxa weeye ilaahay ka badbaadiyo kooxda maafiyada hadda dhaqaalahooda rabteen mar laba xamar la aado bal hal dani fiiri Nairobi la marayay Sambiyay lacagta Puntland ma rabaan wax weey lagu raaxaysto hadda fiiri askartan xaq u lahaa dadka leeyahay la siiyo xuquuqdoodii weey hadda fiiri meel walba wiliga yarkii waxa weeye baxmad baanto waligii aan uusan jirin hadii la kuurayay aan waxa waligii wuxuu ilaahay ka barin helay ba meel walba dhax fadhiistay meel walba waxa weeye hadii la kuurayay mafahmisa isaguna marqafad busitay Puntland meel walba la maraya ilaahay Puntland ha u sahlo insha Allah taala intaas ku soo gabagabeynay barnaamijkeena khayr baad meeray